waxaa ka mid ah awoodaha dalka uu leeyahay in lagu takrifalay ee ahaa isku dheelitirka iyo waxwad qaybsiga awoodaha habka dalku maanta u dhisan yahay ama hal dowladaha xubnaha ka ha noqoto ama hab beeleedba ha noqotay maadaama weli 4.5 aan laga gudbin waxaan dhaliil weyn ka qabnay sidii loo maareeyay gudoomiyihii bangiga dhexe ee Soomaaliya oo runtii ah xadgudub habka nidaamka wax qaybsiga muuqda oo haddana process runtii aad u khaldan oo in la sheego habboon lagu sameeyay waxaad ogtihiin inuu muddo dhowr bilood socday sidii gudoomiyaha bangiga loo xul lahaa oo wax qayb ahaan dadka reer Puntland ay u lahaayeen waxaa hareer socotay mar la bedelaya gudoomiyaha maxkamadda sare looma marin process nin baa laga qaaday nin isla haybtii ah baa lagu bedelay Puntlandna waxba kama qaban laakiin gudoomiyaha bangiga dhexe marka la soo gaaray waxa la tartan furan loo galo markii ugu horeysay waxa laga leexiyay wadadii saxay oo habkii wax qaybsiga inta laga gaarayo waxba kama qabno mustaqbalka dadka Soomaaliyeed inay imtixaan iyo ku soo yimaadaan oo qofka ku habboon uu noqdo waxba kama qabno waxa loo ololeeyay in halkaas si looga bixiyo la yiraahdo qof aan Soomaali lahayn waa la qaadan karaa ogeedeen ololaha la galay markii taa laga soo gudbay oo la furay oo dadkii reer Puntland ay iyagoo waxba ka qabin xataa tartankii galeen tartankii markuu soo dhawaaday oo dadkii short listiga ah reer Puntland noqdeen ayaa waxaa la qaatay nin qoladii fittingka sameeyay dadka kale xulaysa kamid ah oo aanan ahayn reer Puntland iyadan runtii waxay tahay nidaamka hab qaybsiga in lagu xadgudbayo waxay ka dhigan tahay in Puntland aan waxba laga weydiinayn awoodaha sare ee dalku leeyahay sidaasna dalku kuma sii socon karo saxna maaha